بسم الله ربي يسر ولا تعسر عونك يا ربي يا إله marka ugu horeyso waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay naxariis guuda naxariista naxariis gaar naxariista marka xigta waxaan halkan salaan diiran oo saafi ah salaan qiimo iyo qaayo leh salaan sharaf iyo karaamo ee ka buuxdo salaan ducaa salaantaas oo isku salaamaan dadka muslimiinta ah taas oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaan sharafeed kadib waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo xalfadan qiimaha iyo qaayaha huban ee qalin jabinta dufcaddii toddobaad ee dugsiga faca weyn ee barashada xirfadaha caafimaadka luqadda ingiliishka iyo kombiyuutarka waxaan hambaliyo iyo duco halkan ugu dirayaa maamulka macallimiinta howlwadeennada ee dugsiga saacid oo runtii noo soo saaray dufcaddii toddobaad run ahaantii waxbarashadu waxay leedahay qiimo aad u ballaaran waxbarasho la'aan waa iftiin la'aan waxbarashada waxay nuurisaa deegaanka dadka dalka iyo guud ahaanba qofka waxbaranaya iyo qoyskiisaba sidaa daraaddeed waa muhiim inaan baraarujino hambaliyeyno goor kasta iyo goob kastaba tacliinta iyo bahwadaagta inteeda kale ee waxbarashada waxaan sidaas oo kale ku boorinayaa dadka deegaanka iyo guud ahaanba ee shacbiga in la dhiirigeliyo mudnaan la siiyo mudnaanta koowaad la siiyo waxbarashada waayo qofka waxbartay iyo qofka aan waxbaranin ma noqon karaan marnaba isku mid waayo ilaah wuxuu ku leeyahay aayadiisa quraanka kariimka ee qolka eebbe qul hal yastawi alladina ya'lamuun walladina laa ya'lamuun isku mid ma noqon karaan qof waxbartay iyo qof aan waxbaranin gaar ahaan in xirfadaha waxbarasho sida xarqaanka barashadiisa cilaansaarka caafimaadka iyo kombiyuutarkaba waxay ka ciyaaraysaa door firfircoon qofka iyo mustaqbalkiisa inay soo bataan dufcado fara badan oo xirfadlayaal ah waxay muujinaysaa kowaca tacliinta iyo horumarka bulshada waxbarashada sidaa wada ogtihiin waa muhiim waxayna door firfircoon ka qaadanaysaa qofka iyo sida uu mustaqbalkiisa u ekaanayo marka mar walbo iyo mar kastaba waa ahmiyad gaar ah waalidiintu inay siiyaan in ubadka soo korayo ama xirfadlayaal laga dhigo ama waxbarashada aasaasiga ah la geeyo waxaan u hambaliyeynayaa dufcadda toddobaad qalinjabiyaasha ardayda soo baratay caafimaadka kombiyuutarka iyo luqadda ingiliishka ee macadka saacid haddii aan ka sheekeynayno waxbarashada maantoo dhan iyo gelinkeeda ma dhammaanayso laakiin inta muhiimka ahayd waxaa ka sheekeeyey dadkii mikrofonka igaga horreeyey ee ka hadlay qiimaha iyo qaayaha waxbarashadu ay leedahay balse hadda munaasabadda maanta waxa ay noo tahay inaan u duceyno u hambaliyeyno ardayda dufcadda toddobaad ee dugsiga saacid run ahaantii dugsiga saacid waxaan u malaynayaa xalfadihiisii intoodii badan waxaan uga soo qaybgalayay inaan u hambaliyeeyo
dhiirigeliyo maantana dufcadda toddobaad inaan joogo munaasabadoodii qalinjabinta waxay siinaysaa farxad iyo inaan aad iyo aad ugu riyaaqsanahay inay noo soo baxeen dufcad toddobaad oo caafimaadka iyo barashada cilmiga kombiyuutarka soo bartay insha Allah waxaan rabaa kelimadeyda inaan aad u khulaaseeyo waqtigoo aad noo kulaalaya waxaan halkan fadhiyo indhahaygu ay qabanayaan agaasimaha shahaadooyinka gobolka Shabeellada Hoose waxaa sidaasoo kale fadhiya agaasimaha ciyaaraha degmada Afgooye maamulaha dugsiga Alfaraj madaxa imtixaanaadka dugsiga Salaam maamulaha dugsiga Usmaan bin Affan agaasimaha dalxiiska degmada Afgooye iyo maamulihii dugsiga Saacid dhammaantiin waxaan idin leeyahay waxaan idin la wadaagayaa hambaliyada waxaan ka tagay saaxiibkayga qaaliga ah maamulaha dugsiga faca weyn ee Al-Azhar xilmaan hadal kuma jiro marka insha Allah dhammaantiin waxaan idin la wadaagayaa iyo odayaashaba dhammaan intii aan ka tagay iyo cudur daara TikTok leyda saaxiibaday ayaguna waan salaamayaa dhammaan iyo kaameramanka iyo asxaabta kale howlwadeennada kale ee dugsiga haweenka iyo waxgaradka dhammaan culamaa u diinka qaybahooda kala duwan Albanaadiri asagana maamulka xogeenkii macalinka weyn waa salaamaya marka insha Allah intii aan dhaafay iyo cudur daara dhammaantiin waxaan idin la wadaagayaa munaasabadda maanta qalinjabinta dufcadda toddobaad dugsiga faca weyn Saacid barashada luqadaha caafimaadka iyo kombiyuutarka waxaan ugu duceynaynaa maamulaha dugsigaas ustaad Dr. Saacid iyo howlwadeennadiisa inuu Ilaahay u fududeeyo waajibaadka xaqabtirka jahliga waxaan annagana ku garab taagannahay markasta inaan dhiirigelinno wixii talo iyo tusaalo nalooga baahdana aan ku garab istaagno aad baad u